Kareena Kapoor waa atiriisha caan ah oo ku guuleysatay bilado muhiim ah. Waxay shirkadda aflaanta Hindiya ee Bollywood ka tirsaneyd muddo 20 sano ah. 20kii sano ee aan ka midka ahaa aflaanta Bollywood, waxaan soo maray marxalado kala duwan. Waxaan marba marka kale ka dambeysay ii kordhayay khibrad, welina ma aaminsani in aan leeyahay khibrad igu filan. Sababtoo ah 20 sano way yartahay. Waxaan filayaa in sanadaha ii dhiman ay khibradeyda sii kordhi doonto ayay tiri. Kareena Kapoor ayaa sheegtay inay doonayso inay aflaanta ka sii mid ahaato 30 sano ee soo socoto, iyadoo doonayso inay hesho khibrad aad ugu filan. Kareena waxay isguursadeen jilaaga caanka Saif Ali Khan sanadkii 2012, waxa haatan u jooga hal cunug. Waxay sheegtay markii ay uur ka yeelatay ee dadka aad ugu mashquuleen ay ku dhaheen waad cayishay, waad nafol xumaatay. Dadka waxay aaminsan yihiin in haddii qofba uu guursado uusan qaban karin shaqooyinka uu horey u hayay. Marka waxaan u sheegayaa inaysan isku xirnayn ayay tiri. Aniga atiriisha ayaan nahay, waana sii ahaan doonaa, waligay lagama yaabo in aan u joojiyo guurka dartiis. Mar la weydiiyay waxa uu saygeeda Saif Ali Khan ka bedelay nolosha kadib markii ay isguursadeen, waxay Kareena sheegtay in Saif uu isku dheelitiray shaqadeeda iyo nolosheeda kale ee caadiga ah, uuna noqday macalinka nolosha. Waxaa jira wax ka weyn oo ka muhiimsan lacagta, caannimada iyo guusha, taasoo aan filayo inay tahay qoyska, jaceylka iyo deganaanshihiisa dhanka maskaxda. Sidaasi Kareena Kapoor ayaa sheegtay. Ma ogeen inay jiraan wax dhaafsiisan lacag, guul iyo caannimo oo nolosha la xiriira. Isaga ayaa i baray waa qoys, jaceyl, xasilooni maskaxdeed. In aan buug aqriyo iyo in aan wada fariisano oo ka sheekeysano wax aan shaqo la xiriirin. Waxay sheegtay in tan iyo markii ay isguursadeen Saif Ali Khan ay gaartay heerka ugu sareeya ee qanacsanaanta nolosha. Kareena Kapoor oo jishay aflaan badan waxay tilmaamtay in cashiro badan oo dhanka nolosha ay ka baratay saygeeda kadib guurkooda 2012. Wuxuu i baray in nolosha aysan ahayn oo kaliya lacag ama tartan. Wuxuu i baray inay jiraan waxyaabo ka muhiimsan lacagta iyo caannimada oo la jeclaado, waa in la yaqleelo qoys jaceyl ku dhisan, ayay sheegtay Kareena Kapoor. Atiriishadan caanka ah waxay ahayd qofkii ugu horeeyay dumar ah ee shaqada si degdeg ah ugu soo noqday kadib markii ay umushay dhamaadkii sanadkii 2016. Markii ay uur ka lahayd waxay dadka ku dhihi jireen waligeen ma arkin gabar jilaa ah oo Hindi ah uur leh. Waxay tiri sababtoo ah atiriisha kastoo Hindi ah markii ay uur yeelato waxay bilowdaa si ay isku qarin lahayd. Waxay aadaan inta badan London ama America. Kareena Kapoor iyo Saif Ali Khan oo labaduba ah jilayaal caan ah ka ah dalka India iyo caalamka ayaa isguursaday 16kii bishii Oktoobar ee sanadkii 2012. Ma ahan inuu qof uu bedeli karo adiga oo dhan, balse waa sida in uu noloshaada ku soo biirayo nabad iyo xasilooni ah. Sida aad tahay, waxa ugu wanaagsan ee aan Saif ka bartay waa in aan dareemo qof aan ahay kuna noolaa. Kareena Kapoor ayaa markii ugu horeysay qaratay in Saif Ali Khan uu soo bandhigtay dalabka guurka, inaysan 100% aysan ka falcelin. Markii labaad ee guurka ka dalbadayna ay weli ka muujinaysay sida aysan u hubin in ay ku kalsoonaan karto, sida ay qoreen warbaahinta Hindiya. Waxay sheegtay in Saif uu markii ugu horeeyay uu kala hadlay in ay isguursadaan xilligii ay isla jilayeen filimka lagu magacaabo Taashaan. Filimkaasi ayaa lagu jilay dalka Greek. Iyadoo sharaxaysa waxay tiri, wuxuu igu yiri, waxay ila tahay in aan isguursano. Hadalkaasna wuxuu ii sheegay anagoo isla joogna Greek. Mar kale hadalkaasi wuxuu igu soo celiyay anagoo jilayna filimka lagu magacaabo Ladakh. Anigana waxaan markaasi ku dhahay ma ogi, sababtoo ah kuma garanayo. Marka runtii taas micnaheedu ma ahayn maya, balse waxay ahayd in aan doonayay in aan si wanaagsan isku sii barano. Kareena Kapoor ayaa su'aal laga weydiiyay sida ay shaqadeeda u sii wadatay kadib markii la guursaday caruurna yeelatay. Waxaan u maleynayaa in aan sameeyay go'aankii ugu wanaagsanaa nolosheeda oo dhan. Si wanaagsan ayaa u kala cadeeyay arrimaha ku saabsan nolosheeda xirfadeed iyo midda shakhsi ahaaneed ee la xiriirta qoys. Cudur maahan inuu qof jaceyl galo, dhimashana maahan. Waan u sheegay Saif, waxaan ku yiri dhageyso, aniga waligay ma joojinayo shaqadeyda. Isaguna wuxuu igu yiri taas waajib ayay kugu tahay.
Saif Ali Khan ayaa waraysi uu dhawaan bixiyay lagu weydiiyay inuu Qatar ka dareemayo guulaha ay Kareena ka gaartay shaqada jilista aflaanta iyo filimkiisa uusan heer wanaagsan ka gaarin. Isagoo su'aashaasi ka jawaabaya wuxuu yiri maya waxay ila tahay inaan aad uga fognahay arinta noocaas ah. Cid lagu eedeeni karana ma jirto taas ayada. Wad ogtahay xaaladaha way isbedelaan, marna kor ayay jirtaa, marna hoos. Mararka qaar qof wuxuu ka guulo badnaanaya qof kale, mararka kalena labada qof waxay wadaagayaan waqti aad u wanaagsan. Saif Ali Khan waxa lagu qiixay inuu yahay jilaaga afaraad ee dhaqaalaha uga badan ka sameeyay jilista aflaanta Bollywoodka marka laga soo tago Aamir Khan, Shah Rukh Khan, Salman Khan iyo Akshay Kumar. Aabihiis waxa lagu magacaabaa Mansoor Ali Khan, wuxuu ahaa kabtankii hore ee xulka qaranka ciyaaraha ee dalka Hindiya.